aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa noqday mid dabin loogu dhigay madaxweyne Cyril Ramaphosa oo ah madaxweynaha Koonfur Afrika kadib markii uu booqasho ku gaaray dalka Mareykanka isla markaana laguna soo dhaweeyay aqalka cad. madaxweyne Donald Trump ayaa ugu horeyntii Ramaphosa ku soo dhaweeyay xaruntiisii waa aqalka cad hayeeshee wuxuu tusay sabraan iyo muuqaalo uu daaray isla markaana uu sheegay in dalkaasi si gaar loo gumaado loona dilo dadka cadaanka waliba kuwa beeraleyda. These are articles over the last few days. Fiiri kuwani waa muuqaalo maalmihii u dambeeyay socday dhimashada dadka geeri eeg waa ka dambeeyaa. Turn the lights down and just put this on. It's right behind you. Trump ayaa intaas kadib waxa uu shiday muuqaal dad ku qaylinaya dila beeraleyda ma uusan sheegi karin halka muuqaalkaas laga soo duubay. Marka daawato muuqaalada waxaan ula jeedaa sida ay xaaladda uga sii darayso waana dad mas'uuliyiin ah oo waxa ay leeyihiin dil cadaanka oo dhulkooda qaado. aan caddeeyo taas maxaa yeelay waxaad aragtay khudbadihii la jeedinayay waa xisbi tirayar kaas oo loo ogol yahay inuu jiro marka loo eego dastuurkeenna. laakiin adigu waad ogolaatay in dhul ay qaataan oo waad u ogolaatay in ay dhulka qaataan. maya ninna dhul ma qaadan karo. marka ay dhulka qaataan waxa ay dilaan beeraleyda cadaanka ah. marka ay dilaanna ma jirto wax laga qabanayo. dalkeenna dembi baa ka jira dadka waxaa lagu dilaa nasiib darro fal dembiyeed ma aha oo keliya dadka cadaanka ah badankoodu waa dad madow ah. ila fiir khariidadan dalka yar ee ku yaala galbeedka Afrika waxa la dhahaa Burkina Faso waa dal dadka ku nool yihiin ku dhawaad 20 milyan. sanadihii u dambeeyay waxa hogaamiye military oo 37 jir ah magaciisana aad u wada taqaanaan Captain Ibrahim Traoré inuu xukunka dalka xoog ku qabsaday marka laga soo tago waxa kale xiisaha leh waa sida uu qalbiyada iyo maskaxda shacabka u qabsaday. bulshada Burkina Faso iyo guud ahaan Afrikaba hanasho buuxda ayuu kula wareegay. sumcadiisa waxa loogu dhisay qaab u muujinaysa inuu yahay dagaalyahanka kaliya ee ban Afrikaanka ah kacaan yare qaabkii Thomas Sankara dib loo dhashay. Thomaskii mararka qaar loogu yeeri jiray Chichi Faaraha Afrika. Sankara wuxuu ahaa kacaan la nool aaminsan qadiyada markistiga waxa lagu tilmaami jiray inuu yahay nin geesi ah oo ku dhiiriday inuu caqabad ku noqdo awoodaha reer galbeedka isla markaana uu riixdo fikirka isku talayeelashada Afrika. taageerayaasha Ibrahim Traoré hadda waxay u arkaan inuu sido taajkii uu ka dhintay Sankara oo uu yahay hogaamiye geesinimada ka shabaha oo aanan ka cabsanaynin la dagaalanka guumeysiga cusub ee reer galbeedka. haddaba maxay tahay sababta jaceylka Traoré loo qabo oo Afrika dhan sidaas ugu faafay? sababta ugu weyn waa in fariinta Traoré ay ka turjumayso niyad-jabka sii kordhaya ee guud ahaan dhalinyarada Afrika ka qaadeen qaaradda. dad badan oo Afrikaan ayaa is weydiinaya maxay qaaradan oo hodan ku ah macdanta iyo kheyraadka intaas oo qarni ugu jirta saboolnimada baahsan. sanadkii 2022 Traoré ayaa awoodda dalka u qabsaday Afgambi. xukuumaddiisu wixii ugu horreeyay ay samaysay wuxuu ahaa inay xiriir u jarto Faransiiska oo ahaa awooddii guumeysiga dalkaas kaga talin jirtay. Traoré wuxuu u gogol ragtay Ruushka oo u buuxiyay booskii Faransiisku baneeyay. horay ayuu wuxuu ka keenay ciidamadii balamilitariga Ruushka si ay uga caawiyaan sugidda ammaanka dalka markii uu la wareegay. dhaqaale ahaan wuxuu qaatay aragtiyooyinka bidixda xag jirka ah oo kheyraadka dalka lagu qarameynayo. dawladdiisu hadda waxay leedahay shirkad macdan qodis u gaar ah waxayna shirkadaha shisheeye ku waajib yeeshay inay siiyaan 15% saamiga shirkad kasta. sidoo kale wuxuu ku adkaystay in xirfadaha shirkadda ku shaqeynayso la baro shaqaalaha reer Burkina Faso. Traoré wuxuu go'aamadan iyo habdooligan cusub ugu yeerayaa kacaan iyo wado uu ku hubinayo in ugu dambeyn Burkina Faso ay ka faa'iideysato hodanka macdanteeda halkii ay shirkadaha shisheeye ka heli lahaayeen qaybta libaaxa. Ibrahim Traoré wuxuu dhisayaa warshad dawladdu leedahay oo qaabilsan nadiifinta dahabka waxayna markii ugu horreysay abid aasaasayaan keed qaran oo dahab ah. waa tilaabo uu ku sheegay inay tahay mid lagu muujinayo madax banaanida u haystaan go'aamada u gaarka ah dalkiisa. shirkadaha reer galbeedku kuma faraxsana hab maamulkiisa. shirkadda Australia laga leeyahay Sarama Resources ayaa dacwad racfaan ah ka gudbisay kadib markii uu laysanka kala laabtay. shirkad London ku diiwaan gashan ayuu sidoo kale wuxuu ka qaatay macdan aad u tiro badan oo ay qodatay waxa uuna ku daray hantida la qaran galiyay. gudaha dalka keliyana caanka ma ahee ololaha Traoré ee baraha bulshada
waa mid si dhab ah looga shaqeeyey. muuqaallo AI lagu sameeyey oo fanaaniin caan ah heeso ku ammaanayaan ayaa bilihii u dambeeyey wuxuu ka soo qulqulayeen baraha bulshada. inkastoo ay been abuur yihiin haddana waxtar ayay u leeyihiin dhisidda sawirkiisa loogu muujinayo kacan abuuraha keliya Afrika ku nool hadda. caalamku wuxuu si fiican ugu baraarugay caannimadiisa shirkii Ruushka ee Afrika ee u dhaxeeyay ee dhacay sanadii 2023 halkaas oo Traore madaxda Afrika kaga booriyay inay joojiyaan u dhaqmida sidii dabadhilif markasta u ciyaara halka guumeystaha reer galbeedku u jiheeyaan. warbaahinta Ruushka ayaa hadalkaas aad u faafisay waxayna sare u qaaday shacbiyadiisa inuu u ololeynayo isku talayaashada Afrika ah. toddobaadkii hore wuxuu ka qayb galay dabaaldegga 8aad ee guusha Sofiyeet ku gaaray Naazigii Jarmalka isagoo Twitter ku qoray in isaga iyo madaxda Mali iyo Niger ay ku dhiiran yihiin inay dagaalkaas mid la mid ah kaga adkaadaan argagixisada iyo gumaysiga dalalka shisheeye ku hayaan qiimo kasta ku kacdo. ololayaashiisa xeeladeysan ee baraha bulshada iyo hadalladiisa markasta uu qeyrada kula fiirsanayo waxay u soo jiiday indhaha Afrikaanka Mareykanka, madowga Ingiriiska iyo cid walba oo isaga ka dhex aragtay inuu yahay astaan u taagan iska caabinta cusuriyadda, gumaysiga iyo adoonsiga. balse weli dad neceb ayaa jira Traore oo qof walba taageero uma aha. waxaana kow ka ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. wuxuu Traore ku tilmaamay qayb ka mid ah isku xir jamaahadeed oo ay dhaleen Pan-Afrikaaniyaasha kuwa isugu yeera iyo dad la dareen ciyaarka. isagoo ku eedeeyay Ruushka iyo Shiinaha inay kicinayaan afgambiyada Afrika ee lagu beegsanayo dhulalkii uu Faransiisku horey u gumaysan jiray. caanimada Traore waxay ku soo beegantay xilli dalkiisa caqabado culus hor yaalaan. Burkina Faso waxay wajahaysaa dagaalo argagixiso ah oo socday 10 sano kuwaas oo dalka ku faafinaya kala qaybsanaan qowmiyadeed iyo rabshado. waa nin yar oo ku nool dal dadkiisu ay aad u da'yar yihiin. celcelis ahaan da'da Burkina Faso waa 17 sano. Traore waxa uu aad u yaqaanaa sida warbaahinta iyo taariikhda loogu adeegsado dhisidda mustaqbal rajayn leh oo laga soo kabsan karo mahadhooyin kasta. dhisidda mustaqbalkaas rajada ku dhisan waa wax marar badan lagu soo arkay taariikhda Burkina Faso. Thomas Sankara wuxuu awood u qabsaday isagoo 33 jir ah oo ku dhawaaqaya halkudhig ahaa guusha dalkeena hooyo ama geerida. waxa afgambi lagu dilay isagoo weli carabka ku haya weedhaas. hadda Ibrahim Traore waxa loo arkaa inuu yahay ruuxdii Sankara oo dib uga soo dhaxdhalatay jil cusub oo hami badan u leh isbedelka. inkastoo colaado dhibaato badan ka jiraan Burkina Faso haddana hay'adaha caalamiga ah sida IMF iyo Bankiga Adduunku waxay sheegeen dhaqaalaha Burkina Faso uu kor u soo kacayo oo heerkii saboolnimada uu hoos u dhacay. waxay ku tilmaameen horumar la dhashay xukunka Ibrahim Traore. talaska Afrika ee Mareykanka ayaa ku eedeeyay Traore inuu u isticmaalayo keedka dahabka qaranka si uu ciidankiisa ugu maalgeliyo oo qayb ka mid ah taageerayaashiisa ku dhaliileen. Traore wuxuu sheegay in xukuumaddiisu dhawaan fashilisay qorshe afgambi oo ay sheegeen in laga soo abaabulay Ivory Coast halkaas oo saraakiisha Mareykanku bilihii la soo dhaafay booqdeen. haddaba maxaa xiga mustaqbalka Burkina Faso? qofna ma sii saadaalin karo dhab ahaan, laakiin Traore oo ay weheliyaan hogaamiyaasha militariga ee Mali iyo Niger waxay dhulka siyaasadeed ee galbeedka Afrika ka dhigeen mid aad uga bedelan rabitaan kasta oo reer galbeedku ka qabeen. waxay eriyeen ciidamadii Faransiiska, waxay ka baxeen isbahaysyadii gobolka, waxayna soo rogeen cashuuro cusub oo ganacsi iyo hab maamul hiddo u leh Afrikaan. si Burkina Faso hadda u noqoto dhaxal waara oo riyadii Sankara iyo Traoreba u hirgasho, khibradu waxay leeyihiin waa inuu kabteen Ibrahim Traore hadda diiradda saaraa nabadda iyo hay'ado dawladeed oo xooggan. goorta uu xukunka Ibrahim Traore burburi doono ama bulaali doono hadda lama ogaan karo. halka waxa ay isla qirsan yahayse waa inuu joogo bandar uu dhalinyarada Afrika qaybtood ugu yahay astaan geesinimo oo sheekada Afrika muddo laga dhex raadinayay.